wargeyska caanka ah Talyaaniga ka soo baxa Tutto Sport ayaa si rasmi ah u shaaciyay liiska madambeysta abaalmarinta Golden Boy 2025 taas sanad kasta la guddoonsiiyay ciyaaraanka ugu fiican da'diisu ka hooseysa 20 sano kuwa ka ciyaara qaaradda Yurub. Abaalmarintan ayaa la bilaabay sanadii 2003. wargeysyo caalami ah oo kala duwan ayaa door ka qaata codbixinta abaalmarintan taasoo loo arko mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan kubadda cagta dhalinyarada Yurub. liiska madambeysta sanadkan waxaa ku jira 25 ciyaaryahan oo matalaya kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. ciyaartooyda waxaa qayb ka ah Paul Cubarsí oo ka tirsan Barcelona, Desiree Doué Paris, Dan Hazard oo Real Madrid ah, Kenny Yildiz Juventus ah, Marcelo Skelly Arsenal, Lorenzo Amri Paris ah, Arda Güler Madrid, Ferran Mastantuono Madrid ah, Ethan Nwaneri Arsenal, Joel Hato Chelsea ah, Coenda Sport Lisbon, Estevao Chelsea, Leno Yoro Manchester ah, Saint Mayel Paris ah, Oni Reilly Man City ah, Chris Payne oo Bayer Leverkusen ah, Victor Vloch Porto ah, Lucas Pavel Tottenham ah, Andy Carrick Tottenham, Mamadou Sarr Strasbourg, Jude Bellingham Borussia Dortmund, Franco Pio Esposito Inter ah, Rodrigo Mora Porto, Ivan Leon Liverpool, Alexander Stankovic Club Brugge. abaalmarintan ayaa lagu qiimeeyaa waxqabadkii horumarka ciyaartooyda da'da xil ciyaareedkii ugu dambeeyay. waxaa taageerayaashu si weyn u sugayaan magaca guuleysta rasmiga ah inkastoo si buuxda ugu qalmi lahaa Lamine Yamal 10 jir ayaa ka maqan liiska sababtoo xeerka abaalmarinta iyo mamnuucisa in ciyaaryahan hore uu guuleystay Golden Boy marka loo magacaabo. dhammaan ciyaartooydan soo sheegay intooda badan waxaa kuwa waxqabad wanaagsan ka sameeyay kooxooda bandhig sare sameeyay intooda badan loo saadaalinaya sanadkan abaalmarinta ku guuleysan karaan.